alla ila sharaxaadiisa aan Cabdiqaadir oo markale ka dhigo laakiin si guud gabaygan wuxuu ku saabsan yahay Soomaalidu waxay leedahay dad aqoon-yahan ah oo dunida kale waxay qoraan la dhageysto oo la akhriyo oo waliba lagu ixtiraamo gabaygan wuxuu ka dhashay sheekaysi la dhex maray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo Soomaalidu ay si wanaagsan ay u yaqaanaan wada sheekaysigii aniga iyo Samatar ayaan rabay aniguna inaan gabay ka dhigo wixii bal marxaladda u soo joogay iyo maanta sida isaga wuxuu la muuqdaan iyo what are the challenges yaa wax qalday gabayga dhaxal reeb halkaas ka soo baxay halkaas ku yimid dhaxal reeb bal dhaxal reeb noo mari si kastuu gabaygu uu Samatar sheekadiisa ugu soo baxay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar haddana inta badan qofka hadlaya waa aniga wuxuu yidhi waxaan ahay nin dhoobada tolkii adari dhaafeene waxaan ahay dhigaal iyo xusuus aad u dhamac weyne waxaan ahay dharaar iyo habeen geesi dhiirade waxaan ahay nin yara dhuuban oo diiday dhacdiide waxaan ahay dhurwaayada inay dhaaxad dareereene waxaan ahay inay labada dhinac kala dhaqaaqeene waxaan ahay nin gaari u dhaxdo sugaya dheeraade hadba dhaawacan qabo waxaan dheefta cuni waayay dharaariye wixii tagay maxaan gocasho dhuubnaaday dhalinyaro intaan ahay maxaan socodka dheereeyay Soomaalida dhamaantood maxaan horiyay dhiigooda dhan kastoo la eegaba maxaan dhiila maqashiyay dhiirada intii aan lahaa ficilna dhowraayay dhawaaqii habeenimo maxay taydu igu dhaaftay dhimashada aan oo jecel maxaan dhaaxa ubateeyay hadba dhaadashada guud maxaan gabaya dheereeyay dhalashada ninii xigay muxuu tayda dhugan waayay dheeldheeli socodkii maxaan waana dhaxalsii intaasoo dharaarood markaan kor u dhawaaqayay dhamays caanaheedii markaan soo dhadhamin waayay geelaygii oo dhalay markaan dhaqayo raacdeeyay dhakafaaran oo qaba markaan dhaygag socon waayay dhirta iyo ugaadhiyo markuu dhagaxu ii hooyay anna waxaan su'aalahan u dhigay waa dhexroor adage dhaliilahan waqtigu keenay iyo waa dhambaal culuse horta yaa dhulkii aan lahaa ii dhudhubateeyay dadkayga is wada dhaawacay ayaa isugu dhiibay dhaqashii aqoontaan lahaa yaa dhagxuma mooday axdigaynu meel dhiganay iyo wacadkii yaa dhaafay dhaqankii iyo hidihii aan lahaa yaa ka dhalan dhoolay taariikhahaygii dhammaa yaa iskaga dhuuntay dhalanteedka iyo heesihii yaa wax dhaba mooday waa taa dhafuuradu guteen sidigtii dhaameele gobonimadii aan dhici lahaa dhayliyaa geliyey dhigta udubka haysiyo kumaa jabiyey dhuuxeenna arrimahan iswada dhaafsan iyo dhaqankan yaa beeray dhowr aniga oo qaday kumaa dharigii soo mooday dhelalaaba iyo meel cidla yaa u raray dhaanka dhibicdii la eegayay iyo sahankii yaa dhaafay dhufaysiyadan axmaaradu qodiyo dhagaxan yaa keenay dhabbihii iyo jidkii dowladnimo yaa ka dhalan dhoolay dhibaatooyinkaad maqashay iyo dhagartan yaa geystay dhulka iyaga wixii yaallay iyo dahabkii yaa dhoofshay dhuxulaysi iyo tuuganimo yaa dhitadi laacay dhadhaab yaa inoo qixiyo dhacari leefsiiyey dhar salaalaq iyo raacinimo dharaba yaa qaatay dhada iyo waxaan loo hamuun yaa isugu dhaatay wixii waaye laga dhowrsan jiray xalana yaa dhoobay dhimirkii xiskii aan lahaa yaa wax dhiman mooy dhulka iyaga shisheeyahan qabsaday yaa u kala dhuuntay dhagar qaba kuwii loo ogaa yaa xilka u dhiibay dheecaanka hanadkii u kacay yaa xin ugu dhaashtay halyeygii ka dhiidhii lahaa yaa dhab uga laayay yaa intuu gantaalaha la dhacay weliba ii dhaartay dhan loo dayaba xaajadu markay wada dhanaanaatay dhangaagaalayaashiiyo markuu fulay isdhoobayay iyadoo dalkeennii dhammaa xabashi loo dhiibay dhimbiilaha kumaa ololiyo dhimasho yaa doortay dhaxantii iyo kulaylaha xornimo yaa u dhididaayay inaan baaqigaygii la dhicin yaa rag uga dhaartay dhabarkiiyo laxaadkiiyo xubnaha yaa u shubay dhiigga dhiganaha xusuusii gashiyo dhugasho yaa keenay dhibooygii shisheeyuhu watiyo dhoohan yaa kiciyey waxba yaan xusuusaha dhawaa kuu dhammaystirine dhawaaqaygo wuu garanayaa kii wax dhaadaniye dhalinyarada noo hiilisay bale lagaa dhowriye dhabcadaawe iyo baadinimo waa ka dhacanteene dhibaatada ifkiiyo geeridaba waa dhadhamiseene waxaa dhowrayseen iyo xaqi waa u dhimateene dhiiggiinni baa lagu hantiyey dhuliya maamuuse cumarow adaan kuu dhaldhalay dhuuxa maansade waa Cumar Serbiya inkastoo dhextaal hore fariin badiba kuu dhiibay dhagahaaga doodaan lahaa kuma dhaadhicine daralaan u dhaartay haddaan galowgu dhiilaabin ninkastoo i dhaawacay haddaan tiisu dhicisoobin waxaan hadal usii dhararsadaa way iska dhalanteede mar haddaan xaqaa dhumucda weyn dhab uga faallooday dhaxal reeb waxaa iigu filan dhicinta maandeeqe gabaygaana waxaa la yidhaahdaa dhaxal reeb